wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Hargeysa ayaa waxay xoolo ay ka gudoomeen shacabka degmada Dar es Salaam ee waqooyiga magaalada Hargeysa. wariyaha Faysal Maxamed Aadan FIFA ayaa faafahinta warkan inoo soo diray. xubnahan isugu jira wasiiro gudoomiyaha gobolka Maroodijeex, duqa caasimadda Hargeysa, maariyaha guud ee wakaalada biyaha Hargeysa iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka ayaa xilli hore oo saaka iska xaadiriyay deegaano kala duwan oo ku tirsan degmada Dar es Salaam oo dhanka waqooyi ka dhacda Hargeysa isla markaana qiyaasaan u jirta in aan ka yareyn 30 kilomitir. dadiyowga halkan ku nooli waxay si weyn muddooyinkii laga soo gudbay ugu jireen ururinta deeq u talagaleen inay gaarsiiyaan ciidamada Somaliland ee ku sugan jiida hore sida ay tilmaameen. mas'uuliyiintu waxay sidoo kale soo mareen goobo kala duwan oo ka mid ah goobaha lagu diyaariyay xoolaha nool oo tiraan saaka aan ka yareyn 700 oo neef oo iska soo ururiyeen shacbiga ku dhaqan deegaanadan oo badan xoolo raacato. waxaan muxuu ahaayay kulliba hawsha halkan ka dhacday ama waxa halkan ka dhacay runtii iyo xoolaha la wareejinaya wala shuruuc al waajib weeyaan oo waajib lagu lahaa runtii muxuu ahaayay degmada ciidankana sida wadaashu sheegeen meelunba laga wada taagan yahay dadkan meesha joogaana waa naafada ciidanka runtii u badan yihiin sanam haddii loo baahdo diyaar baan nahay dhamaantayo isulimaadno waxaynu isulimaadno wax xoolaano waxaynu wax iskaga tarnaano wax xoolaano waxaan leeyahay xoolaha nool ha loo dadaalo wax loo qabto baa neef soo bixiyay waxa weey saas ugu harlaagiyeen reemiyigii iyo odayadii dhankooda waxay guna halka ka mahad celiyay markana si weyn u bogaadiyay odayaasha iyo dadka ku dhaqan deegaanadaasi. gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Ciise Muuse, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed, duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko. wadarta guud ee xoolaha maanta aan wareejinayno haddii aanu nahay degmada Dar es Salaam ee aan ku wareejinayno maamulka gobolka eega Maroodijeex waxa weeye 686 neef oo ariya. hadalka ku sii fogaan maayo waxaan xusayaa oo arinta aanay la'aantood dhaqaaqdeen laba shakhsi oo maayarka caasimadda Hargeysa iyo maarayaha wakaalada biyaha oo wixii hawla ee hadba nala soo gudboonaada iyagoo ay waajibkoodii tahay haddana nala garab joogay noo caawinayay haddii gaadiid tahay haddii masaarifta odayaasha iyo dadka hawsha ee ka shaqeynaya ay tahay. waxaynu halkan ku wareejinaynaa xoolihii ay kaga qayb galeen degmada Dar es Salaam taakuleynta ciidanka qaranka oo tiradoodu ay dhan tahay 686 oo 150 ka mid ah loo dirayo gudida nabadaynta ceelaf weyn iyo ciidanka qaranka ee jooga. runtii arrintan waxay muujinaysaa sida dadweynaha reer Somaliland ay u garab taagan yihiin ciidankooda qaranka. inta imika la wareejiyay waa 2313 gobolka Maroodijeex. magaaladana sabaayadii iyo waxa wareejiyay dadkii hoose ganacsatadii baa hadhay. caasimaduna way dambeyn doontaa marka ballay mataaniya salaxley la xasuustana geel baa la xasuusanaya. waa fayskii koowaad intii laga qaaday lagu noqon maaye inta kala lagu noqon doonaa insha Allah taala. inta dambe waxaan leenahay walaalaheena Soomaaliya ee maamul goboleedka Puntland ka mid yahay nabadu madaxweynaha iyagu dhigay baanu dhignay. dhankooda waxay guna goobtaasi ka hadlay wasiirkii hore wasaaradda warshadaha Shaciib Maxamed Muuse, maariyaha guud ee wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo dhankiisa isagu ka mid ahaa madaxdii dhexda u xidhay sidii uu hirgeliyay barnaamijkan ku aadan ururinta xoolaha nool sida ay tilmaameen qayb ka mid ah odayaasha goobta ku sugnaa. dalkeennii xora oo Somaliland oo halkan wixii soo maray dhibaatooyinkii ka dhacay la ogaa inaynu haddana maanta kii 4 neef lahaa uu neef ku daray kii 2 lahaana uu mid ku daray. waxayna tusaysaa sida aynu dalkeena iyo dadkeenu heegan ugu yihiin qadiyada guud ee jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland. deegaankeenu joogna waa Geedeeble, waa deegaankii biyo soo saarka waraabinayay caasimadda Somaliland Hargeysa. guud ahaan degmadani waxa weeyaan degmooyinka marka la eego yani qiimaha ay hayaan gobolka Maroodijeex ka waayo waxay waraabisaa caasimadda. degmadan Geedeeble lafteeda gaar ahaan dadka jooga waa mujaahidiinta sanam badankooda dadka jooga waa mujaahidiinta sanam agoontoodii yani dad wadanka u soo dhintay oo u soo halgamay bay halkan jooga wadana shaqadan. runtii hawshana laf dhabar bay u haayeen hawlaha qaranka guud ahaanna laf dhabar bay u yihiin. dhammaan waan salaamaya marti sharafka halkan joogta mas'uuliyiinta qaranka ugu horeeyaan iyo madax dhaqameedka iyo odayaashii runtii inta badan wareegayay tuulo ilaa tuulo iyagoo masaariif haysan dadka u tagayay iyo dadka deegaanka degan ee qaarkood iyagoo 5 neef haysta ama 3 neef haysta wax soo dhiibay. aanu maanta halkan kula wareegano qayb kale oo kamid ah hadiyadii reer Somaliland ugu talagalay ciidankooda sharafta badan inay ku caawiyaan oo aanu ka gudoomano degmada Dar es Salaam.
gunaanadkina waxaa kulanka si rasmi u soo afmeeray wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo iyo sidoo kale wasiir xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye ku amaanay waxaan filayaa kuwa harsana waa daba socdaan dhowr kooxshe soo socda hadii la yiraahdo ayaa lagu wareejin doonaa ciidanka qaranka waad ku amaanaya odayaashii iyo mas'uuliyiintii iyo waxgaradkii kale iyo dadkii xoolo dhaqatada ahayd ee xoolaha muquuninaysay xoolihii iyo deegaanka inay noo daaqaan waynu u baahannahay sidii labada la isu waafajin lahaa waa in meesha la keena hase yeeshee dhul la iska beerto macquul maaha oo un xoolaha laga cesho dadii ku dadaalay ama halka xilka weyn la yaab kale iska saaray in ay had iyo habeenba u socdaan in ay soo ururiyaan dadkana ku qanciyaan in ay xoolaha keenaan mahad ballaaran oo aan la koobi karin ayaan u haynaa bixinta xoolaha nool ee shacbiga ku dhaqan deegaanadan ayaa si weyn wajiyadooda looga dareemayay sida ay ugu faraxsan yihiin inay xilligan la garab istaagaan ciidamadooda xoolo nool oo ay manaafacaadsadaan Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable Hargeysa